nin lagu eedeeyay in uu dilay wiil yar oo naasnuug ah oo uu dhalay ayaa waxa uu la kulmay weerar uu ku soo qaaday qof ay warbaahintu sheegeen in uu ahaa adeerka ilmaha yar kaasi oo booliska ku kadiyay weerarkii uu ku qaaday walaalkii. shabakada CNN ayaa faafisay 5 July Jimcihii 2019 muuqaalka dhacdadan laga duubay oo lagu arkayay ilbiriqsiyada aabaha wiilka dhalay oo la feeriyay kadib markii uu qirtay in uu si ula kac ah u dilay ilmihiisa yar. dhacdadan ayaa ka dhacday gudaha maxkamad ku taala degmada Gibson gudaha gobolka Indiana ee dalka Mareykanka. muuqaalka ayaa laga arkayaa in boolisku ay soo kala dhexgaleen si ay maxbuuska u jeebeeyaan oo ay u badbaadiyaan halka 3 nin oo booliska ka mid ah ay isku hareereeyeen adeerka wiilka ilmaha yar oo la filayo in dambiga uu galay lagu ciqaabo. joornaalka Newsweek ee dalka Mareykanka ka soo baxa ayaa sheegay in maxkamaddu ay xukun xabsi ah ku riday Cohen Buies oo 25 jir ah kadib markii uu dilay wiil yar oo 12 bilood jir ah si ula kac. Buies waxa uu maxkamadda ka dhex sheegay in wiilkiisa yar uu ka soo dhacay barkin xilli uu hurdada madaxiisuna uu dhulka ku dhuftay oo sidaa uu ku dhintay, laakiin baaritaanadii caafimaad ee dhaqaatiirta dambi baarista ay sameeyeen ayaa lagu ogaaday in ilmahan yar si ula kac ah loo dilay. Maria Harling